markana magaalada Hargeysa oo maanta gelinkii hore maxkamadda ay 5 sano xariga ku xukuntay boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow mardhow waxaad maqli doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland oo joogay maxkamaddii xukunkaasi riday oo ku ritay boqorka marka hore wariyaha BBC-da magaalada Hargeysa Axmed Saciid Cige ayaa waxa uu ka warramayaa eedihii boqorka loo haystay iyo xukunkiisa sida uu ii xaqiijiyay xeeraliyaha guud ee Soomaaliland Xasan Maxamed Aadan waxa uu sheegay in maxkamadda gobolka Maroodijeex ee Hargeysa saaka ay xukun ku riday boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow xeeraliyuhu wuxuu ii sheegay oo cadeeyay in boqorka 5 sano lagu xukumay 5 sanana dambiye sida uu sheegay ay ku soo oogeen xeerlalinta oo ay kamid tahay in boqor Buurmadow uu ka jeediyay hadallo dhaawac ku ah sida hadalka dhigay madaxbanaanida Soomaaliland 15 bisha Abriil meesha Puntland uu ka jeediyay hadalladaasi oo xaflad madax dhaqameed ahayd oo lagu caleema saarayay beeldaadsiye deegaankaasi in hadalladaasi waxa uu ku sheegay in ay ahaayeen in boqorku uu sheegay in ciidamada loo baahan yahay in la kala qaado iyadoo uu ciidamada Soomaaliland ay xuduudoodii ay ku sugan yihiin taasina dhaawac ay ku tahay meel kaga dhacay ciidamada Soomaaliland waxa kale uu sheegay in boqorka lagu helay in sidoo hadalka u dhigay xeeraliyuhu in uu ka been abuuray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo markii uu ka hadlayay munaasabada dhaqan uu sheegay in uu madaxweynaha kaga wakiil yahay in halkan inuu yimaado iyo madax dhaqameedka taasiiraha aanay jirin waxa kale oo sheegay oo 5 sano loo cuskaday maxkamadda ay cuskatay yiri in intii maanta ay socotay maxkamaddu sidoo hadalka u dhigay xeeraliyuhu in boqorku uu aflagaadeeyay oo xaqiray maxkamadda isagoo maxkamadda gudoomiyaheeda xukumayay ku yiri sheeg in xukunka lagu soo dhiibay meeshan cadaaladnimo taale laakiin dhinaca kalena markaad eegto in yar ka hor 12 iyo barkii baan boqor Buurmadow aan la xiriiray oo aan wada hadalay wuxuu uu sheegay in procedure-kii uu socdo maanta kaliya uu ay tahay markii maxkamadda ugu horeysay uu tagay isaga oo markii hore la xiray 19 bishan Abriil dambi lagu siiyay 22 bisha oo markaasi dacwadiisa la diyaarinayay markaasi wuxuu la marhaantaasina qaran qabsan doono marka arrimuhu sidaasi ay u dhaceen wariyaha BBC-da magaalada Hargeysa Axmed Saciid Cige ayuu ahaa hadaba waxaan qadka telefoonka ee magaalada Hargeysa aan ku wareysanay xildhibaan Ibraahim Caraale Ruush oo isagu damiintay boqor Buurmadow maanta markii la xukumay waxa uu joogay maxkamadda Cabdinuur ayaa wareystay oo weydiiyay sidii ay maanta u dhaceen wiil ka hor baa la xiray aniga damiintay shalay baa la soo hadlay wax la yidhi maxkamadda waa laydinka baahan yahay anaga iyo boqorka yara kala badan oo socna waa maxkamadda tagnay dabadeedna waxaan ogaanay kiiskii in maanta la rabo in la bilaabo waxaan la hadalnay garsoorihii kiiska qaadayay oo ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka oo maalintii hore aan damiinanayay ay isku qayliyeen boqorku isagoo xaq dastuuriya u leh wuxuu qortay qoraal ku durayo garsooraha kuna codsanayo in garsoore kale oo dhexdhexaada kiiska loogu dhiibo maadaama garsoorahan yahay garsoorihii ay isku qayliyeen isku soo wada duubo lagama yeelin boqorka in laga aqbalo xaqa dastuuriga ah uu sharcigu siiyay inuu duri karo garsoore dhexdhexaadana dalban karo waa laga diiday 12 iyo barkii maalinimay gaadhay intii arintan isku riixayay waxaana filaynaa kiiska in si degan loo qaado xilligaasna la yiri hadda la qaadayo kiiska soo fadhiista boqorku waa hadlay wuxuu yiri hadii maxkamaddu diiday codsigaygii waxaan xaq leeyahay inaan qabsado qareeno iyo difaaca halaysiyo waqti kana waa laga diiday boqorku waa hadlay wuxuu yiri hadii xaqa dastuuriga aan leeyahay idaan iyo ogolayn xukun jeebka ku sidataan baa markaa igu xukumaysa oo idin si diyaara maxkamaddii si emergency oo degdeg ah oo aad muddo ruuxantii inaanay garsoorka iyo cadaaladda aanay ku wanaagsanayn ayaa ruuxantii meesha ka dhacday muddo nus saace iyo wax yar ah gudihii ayaa gebigeedaba iyadoo wax isdifaac aan loo ogolaanin kiiskii lagu soo afmeeray waxaa lagu dhawaaqay fadhigiiba in lagu xukumay muddo 5 sano intaas waa intii saaka dhacday waxaa la tiri qareeno ma joogin degdeg bay u dhacday adigu maadaama xildhibaan aad tahay ka waran bal xukunkan horta marka hore dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland runtii wuxuu leeyahay 3 dhaqdhaqaaq oo ismiisama golaha baarlamaanka iyo cadaaladda iyo wax la yiraahdo xukuumadda wixii khalad mid kamid ku kacona waa la saxaa anigoo ah golaha baarlamaanka kamid ah xukuumadduna ay tahay cid ugu weyn ee arrintan inay daba gasho oo raadiso khaladkaasi sidoo dhacay xaq u leedahay khaladkani ma oranayo waa khalad jiray oo waligiiba ay ku dhaqmaysan jamhuuriyaddu laakiin khaladkan anigu maanta aan goobjoog ahaa waxaan cadeynaya inuu ahaa mid baalmarsan sharciga aan ku wanaagsanayn garsoorka ee dhexdhexaadnimada aanay ka muuqanayn ayaan cadeynaya isla markiiba ciidan baa diyaarsanaa wax la yiri markiiba la
wareega ciidanka amar buu ku siiyay gudoomiye maxkamadda xukunka riday la wareega buu yiri isla markiiba waa la wareegay jeelka weyn baa la qabtay iminka maxaa u furan boqorku horta marka hore dee maxkamaddu darajooyin bay leedahay oo rafcaan baa u furan iyadoo aanan anigu difaacaynin boqorku hadduu dembi galo oo uu si sharciya ugu caddaado oo uu la mid yahay muwaadiniinta kale ee Soomaaliland la mid yahay oo taa anigu aanan ka hadlaynin iminka laakiin anigu waxaan diidayaa procedure-ka iyo systemku wuxuu dhaceen maanta system khalad ah xukuumaddana wax laga doonayaa inay saxdo systemka noocaasa laguna dabagalo maxkamadii arrintaas leeyahay xildhibaan Ibraahim